إنا لله وإنا إليه راجعون waxaa halkan oo ah cusbitaalka Qardho goor dhaweyd la keenay Aweys Cali Nuur oo la iigu sheegay inuu jiro da'da 35 Aweys waxa saaka toorey xagga dhuunta uga dhacday ku dishay xaaskiisa oo ahayd hooyo u haysay 4 caruur ah meydkiisa ayaa halkan la keenay waxaana hadda cusbitaalka guud ee Qardho jooga qaar kamid ah ehelada marxuumka dhacdadan oo saaka ka dhacday magaalada Qardho ayaa waxa la sheegay in silka ku haysay arrimo la xiriira masayr qaar kamid ah ciidamada iyo halkan joogta ayaa la kulanay waxa aan wax ka weydiinay bal wixii xog ah oo ay dhacdada ka hayaan halka waa xafiiska saldhigga booliska degmada Qardho maanta saaka 3 saac 4 saac ay bar waxa ku geeriyooday magaalada marxuum la oran jiray Aweys Cabdi Nuur oo ku baxay xaaska gacantiisa gabar la oran jiray Farxiyo Ismaaciil Maxamed oo hadda ku jira gacanta ciidanka booliska waxay ahayd xaaskiisii waxay shilkaasi ka dhacay xaafadda Kambo ciidamadu way ka howlgaleen ciidanka booliska oo hogaaminaya taliyaha saldhigga waa ka howlgaleen howlgal bacdigiis gacanta lagu soo dhigay gacan ku dhiiglihii wax badan baa dadka shacabka ay saxaafaduna soo weydiirayeen haddana waxay ku jirtaa gacanta booliska gabadhii gacan ku dhiiglaha ahayd waxay ahaayeen family isqaba gabadhaas xaaska 4 caruur ay u lahayd isku dhac bacdigeed ba arintaasi dhacday toorey bay ku dhufatay ninkaas saas ku dhintay dhagaxu saaran yahay insha Allah ina xabaalaha rajeerina halkan waxa uga tacsiyeeyaa awalan eheladii iyo qaraabadii oo ka geeriyooday Aweys waxa la samir iyo iimaan Ilaahay ka siiyo caruurta iyo familkan Ilaahay samir ka siiyo dadka shacabka oo reer Karkaar oo Qardhood oo gacanta ka geystay qabashada gacan ku dhiiglahana aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa sida wada jirka oo ay nagala shaqeeyeen qabashadii gacan ku dhiiglaha gabadha gacan ku dhiiglaha oo runtii gacan bilaaran naga siiyay qabashadeedii oo muddo kooban ciidamadu ku soo qabteen marka insha Allah waxaan rajaynayaa haddii Allah idmo ayadana inaan sharciga marsiirayno marxuumka meydkan insha Allah inaan xawaalo shacabkana waxa uu sheegayaa markasta oo wax dhacaan sida ay nogala shaqeeyaan gacan siinta booliska ay gacanta siirayaan waxa rajaynayaa insha Allah inay gacan siiyaan aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa shacabweynaha magaalada gudaheeda ka soo qabateen gabadha Mismeel ka baxsan hadaa soo qabateen maxaa xigeen maxamuudow gabadha waxaan ka soo qabanay xaafad magaalada kamid ah oo baaris badan bacdigeed shilka guriga ka dhacay kama aan qaban guriga waa ka fakatay xaafad kale lagu sheegay waa ka weynay adigu markii dambe baaris tira badan aan sameeynay hay'adaha sirdoonka nala sameeyay waan qabanay ciidanka booliska saldhiggu wuxuu ku guuleystay inuu gacanta ku soo dhigo gacanta labaad oo xigtana waxa weeye boolisku iyagu eedayn bay leeyihiin iyo inay maxkamadda wax geeyaan insha Allah waxa rajaynayaa xeer aalinta la wadaagno bacdigeedna aan u gudbino maxkamadda Maxamuud Nadiif Shire isbitaalka guud ee magaalada halkan waa isbitaalka magaalada Qardho waxa goordhow la keenay meydka Allah u naxariistay Aweys Cali Nuur oo ku jira da'da 35 sano jirka ah Aweys ayaa la sheegay inay dishay haweenay u dhaxday taas oo lagu sababeeyay dilkiisa masayr soo kala dhaxgalay isaga iyo xaaskiisa Aweys ayaa waxa uu ifka kaga tagay 4 caruur ah laamaha ammaanka oo la hadlay TV-ga Universal ayaa waxay sheegeen sida ay wax u dhaceen bismillaahir rahmaanir rahiim alxamdulillaah rabbil caalamiin halka waa xafiiska saldhigga booliska degmada Qardho maanta saaka 3 saac 4 saac ay bar waxa ku geeriyooday magaalada marxuum la oran jiray Aweys Cabdi Nuur oo ku baxay xaaska gacantiisa gabar la oran jiray Farxiyo Ismaaciil Maxamed oo hadda ku jira gacanta ciidanka booliska waxay ahayd xaaskiisii waxay shilkaasi ka dhacay xaafadda Kambo ciidamadu way ka howlgaleen ciidanka booliska oo hogaaminaya taliyaha saldhigga waa ka howlgaleen howlgal bacdigiis gacanta lagu soo dhigay gacan ku dhiiglihii wax badan baa dadka shacabka ay saxaafaduna soo weydiirayeen haddana waxay ku jirtaa gacanta booliska gabadhii gacan ku dhiiglaha ahayd waxay ahaayeen family isqaba gabadhaas xaaska 4 caruur ay u lahayd isku dhac bacdigeed ba arintaasi dhacday toorey bay ku dhufatay ninkaas saas ku dhintay dhagaxu saaran yahay insha Allah ina xabaalaha rajeerina halkan waxa uga tacsiyeeyaa awalan eheladii iyo qaraabadii oo ka geeriyooday Aweys waxa la samir iyo iimaan Ilaahay ka siiyo caruurta iyo familkan Ilaahay samir ka siiyo dadka shacabka oo reer Karkaar oo Qardhood oo gacanta ka geystay qabashada gacan ku dhiiglahana aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa sida wada jirka oo ay nagala shaqeeyeen qabashadii
gacan ku dhiiglaha gabadha gacan ku dhiiglaha oo runtii gacan balaaran naga siiyay qabashadeedii oo muddo kooban ciidamada ku soo qabteen marka insha Allah waxaan rajaynayaa haddii alla idmo iyadana inaan sharciga marsiirayno marxuumka meydkan insha Allah inaan xawaalo shacabkana waxa uu sheegayaa markasta oo wax dhacaan sida ay noogala shaqeynayaan gacan siinta booliska ay gacanta siirayaan waxaan rajaynayaa insha Allah inay gacan siiyaan aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa Farax Maxamed Khaliif Farax Yemani Universal TV magaalada Qardho